waa mid ka mid ah dhallinyarada isticmaasha baraha bulshada kooda ugu caansan. wuxuu ku soo koray nolol adag, saboolnimada reerkooduna waxay sabab u noqotay inuu ka haro waxbarashadiisii, nasiibna aanu u yeelan gelidda jaamacaddii uu rabay. wuxuu la kulmay cunsuriyad ka dhigtay mid habeenno badan qolkiisa cidlada ah ka dhex ooya. waxay isku dhaceen aabbihii oo u sheegay in YouTube-ku uu yahay shaqo shaydaan, haddii uusan iska daynna ay ku kala go'ayaan. ka hor inta uusan noqon maanta mid ka mid a dhallinyarada ugu saamaynta badan baraha bulshadu ku xidhiirto, sababna uusan u noqon inuu farxad iyo damaashaad geliyo guryaha kumanaan barakacayaal iyo masaakiin ah. wuxuu sameeyey masaajido, qodayna ceelal, isagoon weli gaarin 24 sano. wuxuuna tusaale u noqday yar iyo weynba, heer ay gaareen in dalalku ay u kala tartamaan martigelintiisa. muuqaalkeenna maanta daawadayaal, waxaynu ku soo qaadanaynaa sheekada guusha inan kan qariya jinsiyaddiisa balse u haybta eeg Soomaalida, Xasan Suleymaan Abufallah. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. حتى قال لي يا أبوي أول مرة أشوفه كذا حزين، يقول لي أنت يعني ما شاء الله عليك الدرجة اللي جبتها، ودي أساعدك بس ما أقدر. maalin maalmaha ka mid a ayuu ii yimid aabbahay, wuxuuna iigu yidhi si murugo leh, wax walba waan sameeyey si aan ku geliyo jaamacad, laakiin waan awoodi waayey. erayadan ayuu yidhi Abufallah maruu ka sheekaynayey noloshii adkayd ee uu soo maray. Xasan Suleymaan oo loo garan og yahay Abufallah wuxuu ku dhashay sannadkii 1998 dalka Kuwait. inankan u haybta eeg Soomaalida ayaan marna sheegin jinsiyaddiisa ama dalka uu ka soo jeedo, waxaana mar uu ka qayb galay waraysi ula lahaa wariye Imaaraati ah oo la yiraahdo Anas Bokhsh. uu yiri Anas بالإنجليزي كان مكتوب الجنسية كذا 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 وعمر كذا كذا كذا. قلت أصلا والله لو ما قريت الجنسية عارف أنا هالجنسية بس من كيلو. markii la ii soo gudbiyey fayl ay ku xusan tahay macluumaadkaaga ama xogtaada, sida meesha aad ku dhalatay, sidoo kale waxaa ku qornaa faylka jinsiyadda aad ka soo jeedid. laakiin intaanan eegin jinsiyaddaada, waxaan markii horeba ogaa inaad ka soo jeedid dalkaasi, maxaa yeelay muuq ahaan iyo qaab ahaanba dadka ka soo jeeda dalkaasi isma qariyaan, waadna u muuqeeg tahay. dabcan ma uusan sheegin dalka uu u jeedo, laakiin waxaa loo badiyey inuu u jeedo Soomaalida oo ah dad muuq ahaan uu u muuqeeg yahay Abufallah. فأعرف حتى الكلمات والمصطلحات وأعرف الأشكال وأعرف كلهم. markii uu dhameeyey waxbarashada iskoolka sare, sida carruurtii walaalihii ahayd, wuxuu ku haminayey inuu galo jaamacad, laakiin nasiib darro uma rumoobin riyadaasi. sababo ay ugu weyneed reerkiisa oo aan awoodin inay dusha saartaan masaariifta waxbarashadiisa, iyo sidoo kale aabbihii oo ka niyad jabay waxbarashada walaalkii ka weyn oo uu isugu geeyey wixii uu dhaqaale haystay si uu u dhammeeyo waxbarashadiisa jaamacadeed. laakiin walaalkii ka weyn ma dhammaysan waxbarashadiisii, wuxuuna isaga tegey jaamacaddii, taasoo ku noqotay niyad jab. aabbihii oo deymo badan u galay sidii uu u bixin lahaa lacagta jaamacadda wiilkiisa, duruufahani isbiirsaday ayaa ka dhigay Abufallah mid ka rajo dhiga gelidda jaamacadda sidii uu qorshihiisu u ahaa. wuxuuna noqday mid guriga dhex fadhiya oo aan camal kale lahayn. diinteenna waxaa ku jirta qaacido rabbaani ah oo odhanaysa waxaad moodaysay shar ayaa kuu noqda khayr, waana tan ku dhacday Abufallah. camal la'aantii guriga fariisisay ayaa keentay inankan da'da yar inuu noqdo mid ku fakera furashada channel YouTube. wuxuu sheegay bilowgiisii hore inuusan ahayn yoolkiisu inuu ka gaaro YouTube-ka meel sare ama uu ka sameeyo dhaqaale, balse waxa uu rabay oo keliya inuu ka dhigto meel uu ku qaato wakhtigiisa firaaqada ah. markii uu bilaabay oo uu muddo waday, ayuu la kulmay Abufallah caqabad hor leh oo sabab u noqon gaartay inuu si gebi ahaana u joojiyo channelkiisa YouTube-ka. wuxuu sheegay in aabbihii uu weydiiyey waxa uu qabto, kadibna wuxuu u sheegay inuu ka shaqeeyo internetka, leeyahayna channel YouTube. aabbihii aqoon fiican uma lahayn waxa laga wado YouTube iyo waxa uu yahayba, wuxuuna si gebi ahaana u diiday inuu inankiisu ku dhex milmo caalamka internetka oo uu ka aaminsanaa inuu yahay caalam shaydaan. Abufallah ayaa sheegay inuu ku dhowaad 2 saac iyo bar la fadhiyey aabbihii oo uu u sharaxayay waxa uu yahay YouTube iyo waxa uu ka qabtaba,
laakiin ma noqon mid ku qanciya, wuxuuna aabbihii ku dhegganaa fikirkiisii ahaa inay tahay shaqo shaydaan iyo caalam gaalo. abufallah ayaa u haystay horaantii hore inuu la kaftamayo aabbihii, laakiin arrinku wuxuu isbeddelay markii uu gaaray aabbihii heer uu ku dhaho, haddii aad ka tegi weydid shaqadan ma tihid inankaygii, imana sheegan kartid. arrin yaab iyo amakaag ku noqday abufallah, sidoo kalena ka dhigay mid dhex taagan doorashada laba waddo, waddada aabbihii iyo waddada shaqadiisii uu ka dhex arkayay mustaqbal. maxaa yeelay xilligan waxay ahayd markii uu bilaabay gurashada mirihii dadaalkiisa, janalkiisuna uu kor u dhaafay 5,000,000 qof. sidoo kale wuxuu sheegay in waxyaabaha kor u sii qaaday xanaaqa aabbihii ay ahayd markii uu abufallah ka guuray guriga Kristayna qol istuudiyow ah oo uu rabay inuu ku duubo muuqaaladiisa, waxaana iskulansaday fikradda aabbihii ee ahayd inay tahay shaqadani shaqo kharriban, iyo isaga oo gurigii ka fogaaday. wuxuuna ku yidhi, haddii aadan isla maanta soo guurin alaabtaadana aadan soo qaadin, dib iskuma arki karno. أمور كانت بادئة مزح، أحس إنه قاعد يمزح، بعدين وصلت لمراحل سيئة. قال لي والله العلي العظيم إذا ما تركت المكان اللي أنت فيه راح أتبرأ منك. wuxuu u tegey hooyadii si ay ugu qanciso inuu beddelo fikirkiisa, wuxuuna ahaa aabbihii mid ku taagan fikirkiisii ahaa inuu si gebi ahaana u joojiyo shaqadan shaydaan. waa sida uu aaminsanaaye. waxa dhacday in hooyadii ay ku tiri, waxaad ku dhahdaa aabbaha, waan joojiyey shaqadii YouTube-ka, waxaana la shaqeeyaa dhallinyaro kale oo aan kala shaqeeyo howlo ku saabsan kombiyuutarka. waxayna ku tiri, marna ha la soo hadal qaadin inaad YouTube leedahay. wuu sameeyey taladii hooyadii. nasiib wanaagna aabbihii wuu ku qancay markan, wuxuuna ahaa abufallah mid janalkiisa si hoose isaga wata, isaga oo aanu aabbihii ka warhayn. bilowgiisii hore abufallah wuxuu la kulmay cunsuriyad iyo faquuq haddii ay ahaan lahayd YouTube-ka iyo iskoolkaba, wuxuuna sheegay in habeennada qaar uu ku soo noqon jiray guriga, kadibna inta uu qolkiisa u galo uu habeenkii oo dhan ooyi jiray arxandarrada iyo dhibaatada ay lahayd cunsuriyaddii uu la kulmay, laakiin kama dhigin cunsuriyaddani mid ka raja dhiga hayaankiisii iyo riyooyinkiisii. بس أتذكر إني كنت قبل لا أنام إلهي يا والله كنت أبكي كثير، كنت أبكي كثير إن شلون الناس تهاجمك بالطريقة الغريبة هذه. sanadkii 2020 janalka abufallah ayaa sameeyey kobacii ugu xawaaraha badnaa ee sabab u noqday soo caanbixidda inankan ka soo tallaabsaday caqabad walba oo ka hor timid. sanadkaasi wuxuu gaaray abufallah 11 milyan oo sabskraybar, taasoo ka dhigtay mid isaga laftigiisa u noqotay layaab una rumaysan waayey. maxaa yeelay qorshihiisu wuxuu ahaa inuu gaaro 4 milyan oo keliya sanadkaasi. sidaasi si la mid ahna janalkiisu wuxuu noqday sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2021 janalka ugu kobaca badan adduunka oo dhan, isagoo sanadkaasi ay ku soo biireen ku dhowaad 10 milyan oo qof oo hor leh. wuxuuna sidaasi ku noqday inankii lagu cunsuriyadeyn jiray meel walba oo uu tago, mid ka mida dhallinyarada ugu magaca iyo sumcadda weyn dalalka carabta oo idil. haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid sirta ka dambaysa guusha abufallah iyo gaaridda meesha uu gaaray. waxaa jira 3 tiir oo ka dambeeya sirta uu gaaray inankan da'da yar. tiirka koowaad ayaa ahayd ducada. abufallah ayaa maruu ka sheekaynayey isbeddelkan xawaaraha sare ku socda ee ku yimid noloshiisa ku soo koobay sirta ka dambaysa inay ahayd in maalin maalmaha ka mida iyada oo la addimayo uu alla bariyey aadaanka iyo aqinka dhexdooda, kuna ducaystay inuu ilaahay waafajiyo janalkiisa guul una uga dhigo miduu ka helo arsaaqaduusan weligii ku riyoon. اشهد ربي يا جماعة إني أخذت سجدة لربي والله العلي العظيم بين الأذان والإقامة، بينهم يا جماعة الدعاء مستجاب. أتذكر يا جماعة إني دعيت الدعاء اللي يندعى بين الأذان والإقامة، بعدها أخذت السجود ودعيت يا رب يا رازق يا غفور يا رحيم يا مستجاب للدعاء، يا ربي وفقني في قناتي في اليوتيوب ويسر لي إياها ونجحني يا رب العالمين، واجعلها أتذكرها واجعلها منبر رزق عظيم لي. ducadan uu ku ducaystay aadaanka iyo aqinka dhexdiisa ayaa sabab u noqotay in muddo yar uu ku noqdo janalkiisu janalka ugu kobaca badan adduunka oo dhan. tiirka labaad ayaa ah sadaqada. waxaynu dhammaantiin wada ogsoonnahay in marka aad sadaqaysatid xoolahaaga
uu alle ku labajibaarayo kuna barakaynayo hantidaada. abufalla wuxuu caan ku yahay in mar walba oo uu xaqiijiyo lambar weyn sida gaaridda 1 milyan, 2 milyan iyo wixii la mid ah inuu sameeyo olole ama barnaamij samafal. barnaamijkaasi ayuu ku caawiyaa boqolaal iyo kumanaan danyar ah oo ku kala sugan dalalka Afrika iyo dalalka Carbeedba. abufalla ayaa sameeyey tan iyo intii uu bilaabay mashaariicdan, mashaariic ay ka mid yihiin dhisidda masaajid uu ka dhisay dalka Mozambique. sidoo kale wuxuu ceel ka qoday dalka Mali, wuxuu ka sameeyey goob caafimaad oo bilaash ah dalka Yaman. wuxuu bilo yar uun ka hor ururiyey in ka badan 1 milyan oo dollar oo lagu caawinayo ku dhowaad 17,000 oo qof oo ka mid ah barakacayaasha Syria ee ku nool kaamamka ku yaala xuduudaha si bilaha qabowga ah ay u helaan wax ay qabowga ka galaan. hadda oo aynu duubayno muuqaalkan wuxuu wadaa barnaamij toos ah ama live ah isagoo ku jira maalintiisii 10aad, wuxuuna yoolkiisu yahay markan inuu ururiyo 10 milyan oo dollar oo lagu caawinayo qabobahan ku dhowaad 100,000 oo reer oo ah barakacayaal. dhammaan sadaqooyinkan iyo barnaamijyadan samafal ee uu samaynayo abufalla waxay ka dhigeen mid kasbada qulubta yar iyo weynba. sidoo kale tiirka saddexaad ee guusha abufalla ayaa ah saaxiibada wanaagsan. haddii aad u fiirsatid abufalla wuxuu leeyahay saaxiibo ka agdhow kuwaasoo sabab u ahaa garab istaaggiisa xilliyadii adkaa ee uu soo maray. wuxuuna sheegay in fikradda ah inuu sameeyo barnaamij khayri ah mar walba oo ay ku soo biiraan channelkiisa 1 milyan oo qof oo cusub inay ka timid mid ka mid ah saaxiibadiisa oo kula taliyey fikraddan. isku soo duuduub oo abufalla ayaa maanta ah mid ka mid ah dhallinyarada ugu saamaynta badan dalalka Carabta, wuxuuna tusaale iyo role model u noqday jiilka yaryar ee hadda soo koraya oo ah dadka ugu badan ee ku xiran channelkiisa. waxayna ka dhigtay sadaqooyinka uu ku dhiirigelinayo dadka ku xiran inay la baxaan mid ka dhigta carruurta iyo dhallinyarada ku xiran kuwa dareema ahmiyadda ay leedahay sadaqadu. waxaana hubaal ah in aabbihii shalay ka hortaagnaa inuu galo caalamkan uu maanta yahay mid ku faana inankiisa. guusha uu gaaray abufalla kuma imaan habeen iyo maalin gudahood, balse wuxuu u soo maray rafaad iyo caqabado aad u tiro badan. wuxuu kumanaan jeer la kulmay cunsuriyad iyo in la dhaho waxaad ku dayataa hebel oo aad soo gudbisaa waxa uu soo gudbiyo, laakiin dheg jala kuma siin ilaa uu ka gaaray meesha uu joogo maanta. wuxuu bilaabay 2016 laakiin wuxuu gurtay miraha guushiisa 2020. 4 sano ee u dhaxaysay wuxuu ahaa mid aan ka rajo dhigin, sidoo kalena aan iska dhaadhicin inuusan meel ka gaarin YouTube-ka ilaa uu ugu dambayn mirihii dulqaadkiisa gurtay. waana qaacidada ay ku taagan tahay noloshu. lagama yaabo inaad islamarkaba guul aad ka gaartid shaqo aad bilowday, laakiin dulqaad iyo samir badan oo aad samaysid ayaa kaa dhigaysa mid gaara gurashada miraha guushiisa. channelkiisa guul una uga dhigo miduu ka helo arsaaqaduusan weligii ku riyoon. اشهد ربي يا جماعة إني أخذت سجدة لربي والله العلي العظيم بين الأذان والإقامة بينهم يا جماعة الدعاء مستجاب. أتذكر يا جماعة إني دعيت الدعاء اللي يندعى بين الأذان والإقامة. بعدها أخذت السجود ودعيت يا رب يا رازق يا غفور يا رحيم يا مستجاب للدعاء. يا ربي وفقني في قناتي في اليوتيوب ويسر لي إياها ونجحني يا رب العالمين واجعلها أتذكرها واجعلها منبر رزق عظيم لي. ducadan uu ku ducaystay aadaanka iyo aqinka dhexdiisa ayaa sabab u noqotay in muddo yar uu ku noqdo channelka ugu kobaca badan adduunka oo dhan. tiirka labaad ayaa ah sadaqada. waxaynu dhammaantiin wada ogsoonnahay in marka aad sadaqaysatid xoolahaaga uu alle ku labajibaarayo kuna barakaynayo hantidaada. abufalla wuxuu caan ku yahay in mar walba oo uu xaqiijiyo lambar weyn sida gaaridda 1 milyan, 2 milyan iyo wixii la mid ah inuu sameeyo olole ama barnaamij samafal. barnaamijkaasi ayuu ku caawiyaa boqolaal iyo kumanaan danyar ah oo ku kala sugan dalalka Afrika iyo dalalka Carbeedba. abufalla ayaa sameeyey tan iyo intii uu bilaabay mashaariicdan, mashaariic ay ka mid yihiin dhisidda masaajid uu ka dhisay dalka Mozambique. sidoo kale wuxuu ceel ka qoday dalka Mali, wuxuu ka sameeyey goob caafimaad oo bilaash ah dalka Yaman. wuxuu bilo yar uun ka hor ururiyey in ka badan 1 milyan oo dollar
oo lagu caawinayo ku dhowaad 17,000 oo qof oo ka mida barakacayaasha Syria ee ku nool kaamamka ku yaala xuduudaha si bilaha qabowga ah ay u helaan wax ay qabowga ka galaan. Hadda oo aynu duubayno muuqaalkan, wuxuu wadaa barnaamij toos ah ama live ah isagoo ku jira maalintiisii 10aad, wuxuuna yoolkiisu yahay markan inuu aruuriyo $10 milyan oo lagu caawinayo qabobahan ku dhowaad 100,000 oo reer oo ah barakacayaal. Dhammaan sadaqooyinkan iyo barnaamijyadan samafal ee uu samaynayo Abu Falla waxay ka dhigeen mid kasbada qulubta yar iyo weynba. Sidoo kale tiirka saddexaad ee guusha Abu Falla ayaa ah saaxiibada wanaagsan. Haddii aad u fiirsatid Abu Falla, wuxuu leeyahay saaxiibo ka agdhow kuwaasoo sabab u ahaa garab istaaggiisa xilliyadii adkaa ee uu soo maray. wuxuuna sheegay in fikradda ah inuu sameeyo barnaamij khayri ah mar walba oo ay ku soo biiraan channelkiisa 1 milyan oo qof oo cusub inay ka timid mid ka mid ah saaxiibadiisa oo kula taliyay fikraddan. Isku soo duuduubo Abu Falla ayaa maanta ah mid ka mid ah dhalinyarada ugu saamaynta badan dalalka Carabta, wuxuuna tusaale iyo role model u noqday jiilka yaryar ee hadda soo koraya oo ah dadka ugu badan ee ku xiran channelkiisa, waxayna ka dhigtay sadaqooyinka uu ku dhiirigelinayo dadka ku xiran inay la baxaan mid ka dhigta carruurta iyo dhalinyarada ku xiran kuwa dareema ahmiyadda ay leedahay sadaqadu. waxaana hubaal ah in aabbihii shalay ka hortaagnaa inuu galo caalamkan uu maanta yahay mid ku faana inankiisa. guusha uu gaaray Abu Falla kuma imaan habeen iyo maalin gudahood, balse wuxuu u soo maray rafaad iyo caqabado aad u tiro badan. wuxuu kumanaan jeer la kulmay cunsuriyad iyo in la dhaho waxaad ku dayataa hebel oo aad soo gudbisaa waxa uu soo gudbiyo, laakiin dheg jala kuma siin ilaa uu ka gaaray meesha uu joogo maanta. wuxuu bilaabay 2016, laakiin wuxuu gurtay miraha guushiisa 2020. 4 sano ee u dhaxaysay wuxuu ahaa mid aan ka rajo dhigin, sidoo kalena aan iska dhaadhicin inuusan meel ka gaarin YouTube-ka ilaa uu ugu dambayn mirihii dulqaadkiisa gurtay. waana qaacidada ay ku taagan tahay noloshu. lagama yaabo inaad isla markaba guul aad ka gaartid shaqo aad bilowday, laakiin dulqaad iyo samir badan oo aad samaysid ayaa kaa dhigaysa mid gaara gurashada miraha guushiisa.